kulanti wacan halkan waa nuxurka wararka waxaad ku soo dhawaataan warar iyo warbixino waxyaabaha daawad doontaan haddii alowina uu qadaro waxaa ka mid ah guddida doorashooyinka heer federaal oo la soo wareegay liiska xildhibaanada cusub ee lagu soo doortay Jubbaland. waxyaabaha kale aad daawad doontaan waxaa ka mid ah Somaliland oo uu ka dhacay weerar iskahorimaad ah iyo sargaal sare oo markaasi la dhaawacay. xogo iyo warbixin ayaad ku daawad doontaan muxuu yahay ujeedka safarka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guleed Qadar uu markaasi u aaday Dooxa iyo Qatar xilli uu la kulmay markaasi Tamim bin Hamid Al Thani oo ah amiirka dowladda dalkaasi Qatar. waxyaabaha kale daawad doontaan waxaa ka mid ah urur deegaanka la yiraahdo oo khasaaro weerar geystay uu ka dhacay. xogo ayaa sheegaya markaasi weerarkaas waqti badan uu qaatay welina ay jirto xiisada halka ka taagan. qodobada ayaan dul istaagi doonaa waanu falanqeyn doonaa halkan waa nuxurka wararka. soo dhawaada daawadayaal, haddii aad ku cusub tahay ka mid noqo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada sidoo kalena markaasi share gareynaya. aynu ku bilowna haddaba. guddida doorashada federaalka ayaa la soo wareegay liiska xildhibaanada cusub ee lagu doortay Jubbaland. guddida hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa markaasi lagu wareejiyay ama way wareejiyeenba galalka 34 xildhibaan oo kuraastooda ku asteesnay deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee Kismaayo. guddida doorashooyinka heer federaal ee markaasi dowladda wakiilka guddida FIT Marwo Faaduma Cabdullaahi ayaa la wareegtay dhammaan dukumeentiyadaas waxaana goobjoog ka ahaa 11 xubnood ee SIT iyo guddida EDRC. waxaana la xasuusiyey in guddiyada kale ee aan weli soo gudbin ay ku keenaan waqtiga loo asteeyay dhamaystirka shaqadaasi. dowlad goboleedka Jubbaland waxaa ku harsan 16 kursi ee deegaan doorashada labaad, balse waxa ay soo gabagabaysay kuraasta deegaan doorashada labaad. dowlad goboleedka Puntland ayaa markaasi si dhammaystiran u wareejiyay dhammaan xogta iyo dukumeentiyada xildhibaanada ka imaanaya Puntland sida lagu xusay qoraal dhawaan lagu shaaciyay bogga guddida FIT. maamulka koonfur galbeed ayaa sidoo kale isna wareejiyay inkastoo kol sii horeysay uu markaasi sameeyay arrimo dhowr ah oo markaasi ahaaba in uu markaasi madaxweyne Axmed Cabdicasiis Laftigreen uu markaasi qaatay doorkaasi isagoo uu markaasi xildhibaanada siiyay shahaadooyin, taasi oo siyaabo kala duwan warbaahintu ay uga hadashay. si kasta oo ay xaaladdu noqotoba waxaanu eegi doonaa markan iskahorimaad ayaa ka dhacay duleedka Boorama iyo taliye markaasi ku dhaawacmay. faahfaahin ayaa ka soo baxaya iskahorimaad markaasi maanta ciidamo ka tirsan booliiska Somaliland iyo koox hubeysan ku dhex maray duleedka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Somaliland. iskahorimaadka ayaa waxa uu si gaar uga dhacay goob laga gado ama laga qodo dahabka oo ku taala duleedka magaalada Boorama, waxaana la sheegay in ciidanka booliisku ay rasaas ku fureen rag hubeysan oo halkaasi joogay. warar la helayo ayaa sheegaya in iskahorimaadka uu ka dhashay khasaare dhaawacyo ah, isla markaana waxaa ku dhaawacmay taliye ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka Awdal iyo askar kale oo la socotay. saraakiisha booliiska Somaliland ayaa weli ka hadlin dagaalka ka dhacay duleedka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ee Somaliland, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay jirto xiisad u dhaxaysa ragga hubeysan iyo ciidanka. kol sii horeysay muuqaallo baraha lagu baahiyay bulshada ayaa muujinayay dadyow markaasi dhagxaan dahab ah markaasi kala baxaya dhul buuro ah oo markaasi lagu sheegay in dahabku uu qani ku yahay ama markaasi ay ku aasan tahay. waxaana la soo duubay muuqaalka dad badan oo hablo iyo rag isugu jira kuwaasi oo markaasi mindiyo, faashash iyo sidoo kale badiilo wata, iyagoo markaasi waxaan sameynayay inay qodaan jibiyaan dhagxaanta buurta si ay markaasi u helaan dahab. waxaana dhacaysa inta badan markaasi dhagxaanta la jibiyo in biyo lagu raacsiinayay oo shabaq markaasi loogu dhigayay, markaasi kadibna boorku markuu dhaqmo la ogaanayay in dhagaxaasi uu dahab yahay. dad badan ayaa ka helay dhowr gram halka kuwa badanna markaasi ay ka heleen dahab kale oo badan. maamulka Somaliland ayaa markaasi ku baraarugsaneen arrintaasi amaba markaasi iyadoo ciidanka booliisku ay qaadeen tallaabooyin dhowr ah sida xogo soo baxaya ay sheegayaan.
Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaa markaasi Dooxa ku sugan. Waxa uu kulan la qaatay amiirka dalkaasi Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta ah Mahdi Maxamed Guuleed Qatar iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. Mahdi Guuleed oo magaalada Dooxa kaga qayb galaya meertada 20aad ee madasha Dooxa Forum ayaa amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani si diiran u soo dhaweeyay. Amiirka dowladda Qatar ayaa Mahdi Guuleed uga mahadceliyay sida wanaagsan ee ay u soo ajiibeen martiqaadkii uu fidiyay iyo ka qaybgalkooda ku aadan meertada 20aad ee madasha. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa waxa ay markaasi maanta madasha Dooxa Forum ku soo bandhigi doonaan aragtida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan muhiimadda ay leedahay in adduunku iskaashi buuxa ka yeesho sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada adduunka, wasakhowga hawada iyo kulaylka meeraha oo markaasi ka sii daraya. Si kasta oo xaaladda noqotaba, waxaa markaasi jira heshiisyo ay kala saxiixanayaan dowladaha Qatar iyo Soomaaliya, kuwaasi oo markaasi 5tii sano ee lasoo dhaafay si weyn isugu dhawaa, markaasina ka mid ahaa xubnaha iyagoo aad isugu dhow ee markaasi heshiisyada ku ahaa marka loo qiimeeyo dhacdooyinkaasi, iyadoo ay aad u soo baxday in markaasi dowladda Qatar iyo Soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiisyo ku gadaaman dhanka waxbarashada oo ay markaasi dowladda Qatar ay markaasi sameynayso arrimo ku gadaaman heerarka waxbarashada. Si kasta oo xaaladdu noqotaba, waa hagaag wararkii ugu dambeeyay ee khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka Af Urur ayaan eegi doonaa. Waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaal saacado qaatay oo aroortii hore ee ka dhacay saaka deegaanka Af Urur ee ka tirsan gobolka Bari, kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkaasi labada dhinac ayaa yimid kadib markii dagaalamayaal ka tirsan kooxdaasi ay weerar madaafiic ku bilowday ku soo qaadeen saldhigga ciidamada daraawiishta Puntland ee deegaanka Af Urur. Kadib dhinacyada waxaa dhex maray dagaal markaasi foolka fool ah oo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaa la sheegay in markaasi dagaalkaasi uu yahayba mid waqti badan qaatay oo soo gaaray ilaa iyo markaasi 8 saac iyo markaasi daqiiqado. Inta la xaqiijiyay waxaa geeriyootay 6 askari oo dhinacyadii dagaalamay ah, halka ay ku dhaawacmeen 10 kale, waxaana dhaawacyada loola cararay isbitaalka deegaanka Bilcil ee gobolka Bari. Wararkii ugu dambeeyay ee laga soo helayo aagii lagu dagaalamay ayaa sheegaya in haatan xaaladdu ay tahay mid degan, balse waxaa jira howlgallo baaritaan ah oo ay wadaan ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland. Saraakiisha ciidamada Puntland iyo maamulka gobolka Bari weli kama aysan hadlin dagaalka iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, balse Al-Shabaab dhankooda oo dagaalka ka hadla ayaa sheegay in weerarka ay ku dileen saraakiil ciidan iyo askar, iyagoo xusay inay cagta mariyeen ciidankii ku sugnaa saldhigga deegaanka Af Urur. Waa sida ay sheegeen. qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamij wareedkan ayaan ku guda jirnaa daawadayaal saaxiibayaal. 1 iyo 2 wararka caalamka ayaanu idin marin doonaa oo aanu idin bidhaamin doonaa, iyadoo xiisadda markaasi Russia iyo Ukraine ay weli ay taagan tahay. Si kasta oo xaaladdu noqotaba, haddaba haddii aynu eegno waxaa markaasi Biden oo ah madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ah lagu eedeeyay inuu uga sii daray xaaladda Ukraine. Hadalka madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden uu hawada u mariyay Putin oo ah markaasi Russia madaxweynahooda, kaasi oo markaasi uu ahaaba in uusan sii hayn karinin xukunka Russia, ayaa dhaliyay dhaleeceyn xooggan. Waxaana ka hadlay rogcadaas siyaasi ah oo lagu magacaabo Richard Haas, kaasi oo Joe Biden ku sheegay xaaladdu ay ka dhigay mid aad u adag iyo khatar ah, isagoo bartiisa Twitter ku soo qoray siyaasigaasi caanka ah ee markaasi Mareykanku. Zelensky waa madaxweynaha Ukraine, wuxuu mar kale qeelaan afka u furtay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa markaasi ku booriyay dowladaha reer galbeedka inay dalkiisa gaarsiiyaan diyaarado, taangiyo iyo hubka difaaca gantaalaha. Waxa uu ku cawday in diyaaradaha Ruushka aan lagu soo ridi karin qoryaha darandooriga u dhaca, sida uu markaasi sheegay. Ra'iisul Wasaaraha Slovakia Edward Heger ayaa BBC-da u xaqiijiyay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu u diro hubkiisa difaaca gantaalada hawada ee S-300 ee Soviet